dhegaystayaal gaban inta aabbihii ku waayey agoontoobay haweenay curadkeedii ku weyday haddii kale ninkeedii oo basaastii asayda timihii ku xargoobeen walaalkii ama ina adeerkii kii ku waayey markaasna garab bannaanaaday kii inta ka qayb qaatay aan ku dhiman asii warmaha ama rasaastu ay lixdiisii lixaad halakeeyeen afartaas baa dhab u garan kara aaya xumida uu dagaalku leeyahay oo cel nin galay baa laga waraystaa waa tii la yidhi afartaabaa ku habboon in wax laga weydiiyo hoogga iyo ba'a colaadaha laga dheefo afartaana waxaa marahayga shan looga dhigi karaa nin xirgi leh oo waxba yaanu goobaha dagaalada goobjoog u ahaane dhegmaal ah dhabna u og wixii la soo maray iyo raggii dagaalada fudaydka ku geli jiray taws iyo tabaale wixii ay ka dhexleen taasina waa arrin ay soomaalidu waayo aragnimo ballaaran u leedahay maxaa yeelay muddo dheer ayay biyaha yar iyo baadka kooban ee xoolaha ku loolamaysay inkastoo tiro badani ay reer magaalowdayna haddana dhaqankaasi weli kama idlaan si kastaba ha ahaatee maansadii hore ee soomaalida waxaa ku dhex firiirsan tixa uu gabyaagu ku muujinayo sida colaadaha loogu naafto iyo nabadda sida loogu baraaro ee dad iyo duunyaba loogu bulaalo soo qaado gabyaagii magaca dheeraa raaga ugaas oo barbaarnimadiisii ahaa dagaalyahan geesi ah in badan nin dil iyo duulaan u heelanaa kolba reerihii uu galana aan neefna xeryahooda kaga tegi jirin wuxuu sidaa ahaadaba waagii dambe ayuu keligii isla showray wuu xisaabtamay wuxuu isbarbar dhigay dheefta iyo khasaaraha colaadaha laga kororsado dib ayuu u madacsaday maalmihii ba'naa ee uu u soo joogay iyo intii jeer ee isagu dagaallo uu abaabulay uu ku sigtay eebbase uu ka badbaadiyey markaas baa waxaa ka go'day colaad oo dhan inuu faraha ka qaado inay intii hore uga ekaato ha yeeshee go'aankaas oo qura iskuma koobine wuxuu isku howlay dadka kalena inuu colaadda ka waaniyo oo haddii wax kala galaan uu u kala dab qaado dabadeedna gabayga ka sokow nin nabadeed inuu yahay ayay bulshadii xilligu u aqoonsatay beri baa haddaba waxaa coloobay laba jirib oo raaga ay xigaal iyo darisba ahaayeen birta ayay isu looshadeen waagaasna rasaasi dalka ma soo geline nin waliba wuxuu tuntay waran iyo seef uu maalin baasta isku hadlayn karo wuxuu tabcaday gaashaan uu riddada ninka kale isaga gudbi karo maalintaas ayaa raagana wuxuu u guntaday inuu kala joojiyo in qolo walba uu halkeeda ugu tago oo waxay kala sheeganayaan intuu kala siiyo uu hubka dhulka ka dhigo hase ahaatee inkastoo uu ku noqnoqday inkastoo habeenno badan golayaasha geelashooda uu waagu ugu bariyey haddana waxba ugama naasacaddaan hebelladii uu garaadheerida ku malaynayey ayuu ku walba dhowr jeer ardaagiisa u soo fadhiistay isagoo ka duraamanaya inuu nabad qaato jilibka uu qayliyaha u yahayna u qaado waase lagu madax adeygay waa lagu gacan sayray dhagaha laga furaystay dabadeed maxaa dhacay subax subaxyadaa ka mid ah raaga oo markaa labadii degba middood ka ambabaxay wax qumanse aan ka fogaan ayay ka bannaan isku haleeleen suu halkii uu maraayey buu ku hakaday qacqacdii warmaha iyo jabayaydii dumarka ayaa dareemadiisii gelgelay lugihiisii buu tabar ka waayey cabbaar kadibna markuu is yidhi alla ilahe waa la kala haagay ayuu reerihii dib ugu noqday goobtii wax ka dhaceen ayuu abbaaray waa dul joogsaday mase maxaa mayd gegan hebel xalay iyo habeen horeba uu ka ohol waayey maxaa balli dhiiga dhex jiifa maxaa oday gardiid ahaa raxareebta dusheeda ku naf waayey maxaa nin ay addimadu midhaha noqdeen weli alaladaya muxuu taahoodu isu baxayaa rag dhaawac ah oo waayey cid inta cididda uga maciinta harka u jiidda maalintaas buu raaga tiriyey gabayada tirada yar ee laga hayo kuwa ugu caansan midkood waa gabaygii uu ku taxay magacyada raggii qiimaha lahaa ee goobtaas lagu waayey gabaygii uu ku haaraamay kuwii in sidaasi dhacdo ka teliyey oo shalay sidii awro qooqan doobada u ridaayey raggii nabad iyo nasiinaba degmada uga dhaartay
ee goodigooda laga ladi waayey. waxaa goobta yaalli sow ina shanfool ma aha, kan xigaa sow ow maxamed sanal ma aha, ismaaciil iyo daawuudkii laga harsan waayey sow kuwaa isdhinac yaal ma aha, gorgorka iyo dafadu waxa ay ku degayaan sow ma aha xirsi muude, sow xasan kooshin ma aha, sow muuse iyo nuur siyaad ma aha. guryo baaydheh wada marin maayee qaybta hore ee gabayga ayuu raaga ku yidhi kuwii awrka keenada gashay ee faraska kooreeyey ee waaga kalaxdiisa raray kud iyo aarlaaga kol dhoweyd raggaad wada ogayd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalay lalahaaye kala male ma loo jaray raggan kaydiyooyda hayey gax bannaan sidii kuus qotaad ma u karoo raaday kumow ina shanfool buu ahaa kaahinkii dhimay. beri dambe ayaa tabtaa oo kale wuxuu raaga ogaas isku xilqaamay inuu nabad dhex dhigo laba qolo oo muddo dheer siday u dagaalamayeen ragdoorkii isaga dhammaaday. dhacdo kasta dabadeed geedka shirka ayaa la isugu keenaa, wacad iyo dhaar baa lagu kala kaxeeyaa. hase ahaatee maalmo kooban kadib ayay haddana isku duulaanoo hebel miiranoo lagu jabay iska makalaan. qolo waliba waxay u dhaga nuglaatay nin inuu horiyo mooyee aan isagu goobaha tegi doonin, iyo jacaylka colaadda nin markiisii horeba uu eebbe dabeecad uga dhigay. waa kuwii uu salaan carabay ku sheegi jiray geeraarkiisii caanka ahaa ee tolow colka jooja halku dhagiisu ahaa, kuwii uu ka digayey maalintii isaga qudhiisu uu kala badbaadinayey labadii qolo ee dirirta isugu soo safatay. waxaan u jeedaa tuducii ahaa nin carruuriyo maatiyo calli reere la yaaloo iscoofaya golaayo cararaaya hadhow iyo nin colaa talinaayo oo caddaysta idinka buuxee waar tolow colka jooja. si kastaba ha ahatee markuu raaga labadii qolo kala joojin waayey oo qalabka dirirta niman badsanaya mooyee uu ka quustay, cid inta u soo joogsata warka ka koobisa ayuu isaga dhaqaaqay. dabadeedna wuxuu tiriyey tix 3 meelis oo qura laga hayo. 3dii meelis ee ahaa nimaad caafimaadkiisa talin kuguna caayaaya haddii ciiska weyn la daro warama caal weyn leh miyaa loo calaacalahayaa caamo dhimo.